السلام عليكم أصحابتي وادين سلامي سو دواada youtube channelkeyga hadii aad igu cusubtiin subscribe ka ii saara share like hadii aana la sii joogteena nala sii jooga dhiirigelinta waa xaqiina asxaabay maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago sheeko ama qiso oo aniga aan u bixiyay yacni qadar qof kasta uu yaqaan qadar waa tii alle wuxuu ilaahay qadaro oo dhaco qisadan waxay ku bilaabanaysaa asxaabay waxay ku dhacday horta gabar saaxiibaday ah maxal dhahay gabadha saaxiibaday ah inta yacni ay single ka ahayd oo dhan waxay ku hamin jirtay inay maxal hadii oo ay guursato maxal dhahay nin magaalada ayada ay joogto la joogo dalxiis iyo meel kasta nin geenaya ama nin lacag haysta adi nin nolosheeda wax badan ka bedelaya waxyaalo badan ee maxal dhahay ay heli weysay intay single ka ahayd markay family noqoto inay hesho marka waxay dhihi jirtay hadii aan guursado ma rabo inaan horay ciyaal ka dhalo waxaan rabaa inaan waqti qaato aan soo dalxiiso aan magaalooyin badan ama meel badan aan soo arko waxay jirtay 2 sano waxaan rabaa inaan nafsadeyda aan waqti qaato oo ma rabo ciyaal gabadha sida ay dhihi jirtay kadib waxa dhacday kadib waa la soo doontay waxa soo doontay wiil gobol degan oo laakiin qaraabo ay yihiin oo family-geedana si fiican ay u yaqaanaan oo yaraanteedina ayadana ay isla soo koreen oo nafsi gobolkaas ayada ay yaraanteedii ay family-keeda deganaan jireen laakiin kadib ay magaalada u soo guureen kadib wiilkaas markuu soo doontay family-gii hore ay ka yeeleen kadibna waxa soo gabadhii marka ay ka dhaadhacsiyeen inuu wiilkan wiil fiican yahay family-giisa la yaqaano oo yaraanteedii isla soo koreen oo yacni maxal dhahay inay ogolaato kadib gabadhii way ogolaatay oo guurkii maxal dhahay ilaahay waafajiyay way guursatay laakiin noloshii sida ay u maleynaysa ama sida ay ku haminaysay ma aysan noqonin kadib waxa dhacday gabadhii in gobolkii la dejiyo hamigeedii magaalo ahaa iyo dalxiis iyo adduunyo laakiin ma aysan noqonin gabadhii gobolkii ayaa la dejiyay family-gii wiilka family-kiisa ayuu la dejiyay kadib gabadhii uurka iska celin jirtay oo hamigeeda inay hore uurka qaado ma uusan ahayn uurkii dhowr bilood si iskaga celinaysay family-gii wiilka su'aalo badan maalin kasta markasta waxa la weydiinayo wax ma leedahay khayr sheeg su'aalihii markay ku bateen ee ku wareertay ee jawaabo u weysay waxay go'aansatay inay daawada iska joojiso si ay uur u qaado ee nolosha gobolka yacni ee la qabsato oo khalaas wixii hore oo ay aaminsaneed fikradihii hore maadaama ay u suurtagali waayeen ay niyadeeda ka saarto adiga ay samaysay daawadii way joojisay dhowr bilood ayay uur isku dayday uurkii uu u suurtagali waayay oo uur way qaadi weysay marka kadib waxa dhacay inay dhaqtar aado dhaqtarkii wuxuu dhahay negative waxba ma qabtid waa fiican tahay waa la joogay muddo kadib sidii haddana gabadhii murugo iyo waxaan ku dhahay walwal badan ayaa ku soo ziyaaday haddana ninkeedii dhahday dhaqtarkan adigana soo bax isa soo fiiri ninkii haddana uu isa soo fiiriyay labadiiba waxa la soo dhahay negative adi walwal iyo walbahaar iyo murugo kadib 2 sano gabadhii markay u dhamaatay oo meel kasta ay soo dhameysay iyo wax kasta ilaahay qadartiisa ayadoo daawo iyo waxba aysan qaadanin gabadhii 2 sano kadib 2 sano kasas goostay uurka qaaday marka subxaanallah qadarti ilaahay horta wax la mid ah ma jiraan qofka bini aadankana marmar waxa laga yaabaa hadal uu si basiid u dhahayo inuu samada ugu qormo gabadhan waxa ayadaa saraadsatay oo ku hamin jirtay oo dhigi jirtay 2 sano marib ina ciyaal ku dhalo uurkii yacni arooskayga maxal dhahay marka guursado hore ina wax ka dhalo marib dhigi jirtay marka asxaabay waxa idin ka codsanayaa ina khayrka maxal dhahay aska rajaysan tafaalu bil khair tajidu qof walba khayr wuxuu wanaag ah uu rajeeyo ayuu helayaa sidaas iyo nabadgelyo qisadan iyo qisooyin badan oo la mid ah waxaad ka heli doontaan channelkeena nagu sii xirnaada sidaas iyo nabadgelyo bye bye